السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي وإلهي مهدي هدي أنا اسكو صلى الله مر لبعض إذنكو نبض إي أنيقو نبض وإلهي مهدي عيد مبارك عيد مبارك مدى صومالي دماء هلكا وحاق صومريا تهنيد عيد مبارك اسبشالي dadka ku xiran channelkayga waxaan leeyahay ciid mubaarak idinka iyo familadiina waxaa idin rajeynayaa cimri dheer iyo cibaado suuban in ilaahay noo gaarsiiyo ciidan ciideeda caafimaad qab iyo nabad iyo barwaaqo iyo tahniyada ciida asxaabay maanta waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo sheeko cusub oo yacni markii aan soo akhriyay aan aad uga helay oo filaa idinka inaad ila jeclaan doontaan baa halkan maanta idinkugu hayaa قصدني وحي كده عضي ودنك إنجليزك ما أنتم حنادينا إنجليزك قبل كم بدأ ودنك إنجليزك ومحيط اللي قبل كماديسون يكتر سنيه مقارد اللي هذا كانت أي كده عضي قصدان وحي هذا أصحابي وحي كساب سنتهي لما أنا iskuursaday balse farqiga age gap ku dhaxeeyo 30 sano uu yahay bay ku saabsan tahay qisadan anaga waxa Soomaali hadaan waxaan raahdaa jacaylka dadkan reer Yurub dadka weyn ma guursadaan waa maxay da'da laga fikiraa dadku waa inay isku da' yihiin balse maanta qisadan ayaa beeninaysa ninka la yiraahdo jacayl iyo calaf inuu ku xirnayn dad cadaan tahay dad madow tahay dad Soomaali tahay ummadda dhan ay qusaysa arintan maanta aan ka hadlayo قصدان waxay ku bilaabanaysaa sidatan asxaabay waxa jirtay gabar la yiraahdo Finessa ayaa iska hadlaysa waxay tiri maxay ahayd anigoo Finessa ah waxay ka sheekeynaysaa gurkeeda iyo familkeeda markaas ka hadlaysaa markaan Finessa waxay leedahay jacaylkayga wuxuu iga weyn yahay 30 sano waan ku faraxsanahay waan ku qanacsanahay wiil baan u dhalay alxamdulillah qisada marka waxay ku bilaaban sida isku barteen iyada iyo ninkii qabay markaas adeertaan ninka magaciisa waxa la yiraahdaa wuxuu ahaa Geyza ayaa la yiraahdaa wuxuu ka weyn yahay gabadha 30 sano Geyza iyo Finessa waxay ku kulmeen iskuulkii sanadkii ugu dambeeyay iyadoo 19 jir ah bay iskuulka kulmeen markay iskuulka kulmeen Geyza wuxuu ahaa macallin bara tenniska gabdhaha ayuu ahaa Geys maalmaha kamida ay waxay la kulantay Finessa gabdho isku maxay class ahaayeen oo sheegay in ay bartaan tenniska ayna haystaan macallin aad u fiican oo aad uga caawiya Finessa way ogolaatay gabdhii bay soo raacday way isqortay casharka tenniska inay qaadato ayay bilowday Finessa waa sanadkii ugu dambeeyay iskuulka waa 2018 bas عشركي باي بلودي تنسكي آد وجه هالشيء عشر اسفانتي فهنسينتي سي سيدو ما أركتي وكل دقيقة يبي آد وجه هالشيء قبلان بس أرنت 10 كلمة أنا وحي سبدل دونتا جعيل بقى بسبدل دونتا والد شوقي 10 كذي باي قادتي ويكتكتي وحي بلودي Finessa إذا أسكشكيني سي مرك أنا 10 كاس لا هي يعني مسوق كرو ما خبر أسبوع هالمر ب10 كليين تنسكا مسوي كريت روحان ليه ترى 10 كل مقارمية فوقها محيتاي ما أنت وأيان كده سويدينيس وحياة سويدينيس يا كم دها أرنتو مركي هكاس مريسو إن Finessa إن مع كم ده مركي 10 قصور دماغي بيوحي أشياكتي جيس ومعلم كده كانوا وين 10 سنة بيوحي أشياكتي in ay ma aragtay dareemayso waxyaalo special ah oo ma aragtay aan hadii waxay yihiin bal arintaas bal ila arag ay ku tiri waxaan dareemaa marka aad casharka ii dhigayso ina adiga aad isugu dhownahay oo ma aragtay dadka kale aan iska xigno baan dareemayaa bay ku tiri gabadhii baa oranaysa Finessa ahayd ina aniga iyo adigu iska xigno dadka baan aad u dareemaa بس وحي رسقنا أنا حتى سيدا كله باندري ما Finessa لكن ما قرنا يوحنا كنت المامو بس هو إسك عادي أو وحنا ذكرته إن عن محيط الشرحات أن أدو في عنها إياه الغيابة مساس بها هالكيا لو جود بي عشرك وسيس سعودي محيط بلي وصوتر مر كدم بيسا ما كم إذا مر أي مرة يسول لابد يكون إسرائيل يتونكي بيوحي Finessa تري iga raali ahaw arin baan rabaa inaan ku sheego ee ku leedahay macalinkeeda Geys ninka hadda qabayada ah arin baan rabaa inaan ku sheego waxaan u maleynayaa inaan ka helay inaan ku jeclaaday baan
u malaynayaa hana ii qaadan qalad maadaama aad aabbahayo kala tahay. bes marka hadalka sida ay tiri gabadhi buu wuxuu ku yiri aniga xitaa Finosay waan xishoonayay ma aane rabitaanka adiga ku galay mid la mid ah baa haya laftigayga maxaan sameynaa. markaasay waxay tiri dadku way nala yaabayaan especially familkayga haddii ogaadaan inaan adigaas oo iga weyn 30 sano aan ku jeclahay caqabad baan ka cabsanayaa xiriirkeena hoosey nooga dhig bay tiri gabadhi Vanessa ahayd. halkii bay xiriir ku bilaabeen maxay ahayd way iskulmi jireen magaalooyin kale ku ballami jireen magaalada ay degan tahay Kent kuma aysan ballami jirin maadaama ay ka baqayso dhalinyarada iskuulka ahaayeen iyo familkooda inay arkaan. gabagabada iyo gunti asxaabay gabagabada iyo gunti qisadani waa qiso aad loola yaabay dadkii kulay soo arkay anigoo aan ka mid ahay waan la yaabay balse haddaan Soomaalinahay waxba uma aragno anaga inkastoo aan dhahno wala abuse ya gabdhaha iyo wax abuse leeyahay ma jiraan ha laga dagay dadka dooqooda waxaa jirta wiilal yaryar oo gabdha ka waaweyn guursada waxaa jirta wiilal waaweyn oo gabdha ka yar guursada marka waxana waa dooq iyo jacayl ayaan lagu fududaan hadda kadib. sheekada markay halkaa marayso baa maxay ahayd wuxuu soo barbos gareeyay 2019 ninka la yiraahdo Gays oo ahaa ninka hadda qaba gabadha Vanessa wuxuu usoo barbos gareeyay inay isguursadaan maxay ahayd arrintoodana ay ma aragtay shaaca ka qaadaan aydan way ku raacday Facebook la soo dhigay xitaa waa ninka sheeka dhaafay waxaa jirtay inay ku heshiiyeen markuu isjacaylkooda bilaabanayay in arrinta dhan ay private u ahaato si aan carqalad iyo waxba uga imaan familkii gabadhan iyo isaga xitaa familkiisa aan loo dhihin oday waxaa tahay aan xishoonin gabadha abuse gareyn iyo waxyaalahaas buu ka baqay marka private bay xiriirkooda u ahaa masuuradooda iyo meelaha ay ku kulmaan kulli wax qarsoon bay u ahaayeen. 2019 baa la soo dhigay masawirka u horreeyay isla galeen engagementigoodii markuu Franti u gelinay ayaa Facebook lagu soo daabacay waa la yaabay waxay tiri wixii yaabay iyo wixii kale wax ay qosay male ninkan waan guursanayaa cid aan uga abayeeleyna ma jirto. bes familkeeda way xanaaqeen marka hore laakiin markii dambe way iska ogolaadeen because qof wax jecel cidina kama celin karto. finally arrinta waxaa la soo gabagabeeyay ay isguursadeen gabadhi Vanessa ahayd iyo ninka odaga oo Gays ahaa waxay isguursadeen 2020 waa kan sawirkooda shaashada idin saaran 2020 ayay guurkooda rasmiga officialka u dhacay. haddana waa famil hal wiil bay isu dhaleen wiil waxaa la yiraahdaa Henrik wiil dhahay isu dhaleen waa lamaana isku faraxsan da'da u dhaxaysana waa 30 sano la socda. marka asxaabay maanta qisadaas yar oo ku saabsan dadka kala weyn oo isguurka kala weynka ah oo dadka isku da'da aan ahayn baan jeclaaday inaan idinla wadaago. waa kaas halkaasaan kusoo gabagabeynayaa qisada iyada ahayd ninkayga oo 30 sano iga weyn ayaan ma aragtay oo macalinkayga ahaa ayaa nolosha la wadaagay ayaa la qisada magaceeda. asxaabay haddii aad channelka cusub tahay mar labaad codsi subscribe like share waa xageena wixii soo jeedin aan soo arkan ana idin soo wadaagaya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.